dhismaha wadooyinku waa halbeegga lagu cabiro horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada taabaqaaday. ugu horeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka degmada Ceergaabo oo tan iyo muddadii loo doortay xilka ayaanu dib u doorannay ay dhaqaajiyeen howlo badan oo gobolka u baahnaa oo degmadu u baahnayd. waxay si weyn wax uga qabteen wadooyinka, nadaafadda iyo qashinka, waxay wax ka qabteen howlaha dabdamiska. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay wax u qabteen. wadooyinka laamiga ah waa 3 kiiloomitir sida hore loo sheegay. 3 kiiloomitir 2 kiiloomitir oo ka mid ah waxa hawsheeda min bilow ilaa dhamaad leh oo dhisaysa dawladda hoose degmada Ceergaabo. kiiloomitirka kalena waa GBLG-gii sanadkii hore oo sababa jiray daraadood hadeerto soo gaar muddo badan kadib oo shacabka Ceergaabo iyo gaadiidleydu dhibaato ku qabeen qaar ka mid ah wadooyinka iskaga goosha gudaha Ceergaabo. haatan golaha cusub ee deegaanka Ceergaabo waxa ay ku hawlan yihiin sidii loo heli lahaa Ceergaabo qurux badan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxqabadka dawladda hoose injineer maanta waxa wada hawshan injineer Ceergaabo u dhashay. injineerka waa soo dhaweynayaa. waxaan kaloo soo dhaweynayaa maayarka degmada Ceergaabo iyo maayar ku-xigeenka dhammaan golaha deegaanka wuu mahadnaqaynaa. waxqabadkoodina wuu muuqday waana u mahadnaqay. dawladda hoose ee Ceergaabo ayaa gacanta ku haysa wadooyin cusub oo haatan laga hirgelinayo gudaha magaalada. kuwa qorateen waa shaqadayadii caadiga ahayd horena u socotay oo aad uga mahadnaqayno maayarkeena oo hore soo daadihinayay. waxaanu hogaaminayo rugcada maayara oo 12 sano magaalada soo xukumayay. tubtiisana aanu ku taaganahay talo iyo toodimana nala diyaara. waxaan wax ku qabanaynaa hadda iyo hadhowba waa cashuurta aanu idinka soo ururino. hanana dhibsanina. sanad cusub baa la gelayaa. sanadka cusub dhanka kalena waxa ay golaha deegaanku banayn dhirayn iyo qurxin muddooyinka soo socda ka hirgelin doonaan isla gudaha Ceergaabo. waxaana ay sidaasi Ceergaabo kula taabaqaadi doontaa magaalooyinka dhigeed ah ee Soomaaliland inteeda kale. horumar ballaaran oo ka socda degmada Ceergaabo waxa ka socda waddo 3 kiiloomitir ah. waxa ka socda dhirayn, waxa ka socda banayn 3 kiiloomitir. waxa fuliyay oo dhismaheeda hore lahaa goliga deegaanka ka tagay. intan dambena waxa leh qoladeeda dambe golaha deegaanka cusub. waxaanu leenahay dadweynaha ku dhaqan degmada Ceergaabo dhammaantood waa inay ka qayb qaataan horumarka gobolka ka socda. in laga qayb qaataa horumarka waa in cashuurta la bixiyaa. haddii aan cashuurta la bixin wax horumar oo qabsoomaya ma jiraan. waa in amarkii go'aankii maayarku uu fulaa oo shalayto sheegay waa in sida deg ugu dhaqsaha badan loo qaado sadaqada. insha Allah bismillaahi kariim waxaanu ku rajoonaynaa golaha deegaanka cusub inaan waddo kasta Ceergaabo leedahay marino laami. waxaanu halkan ugu hambalyeynaa waxqabadka muuqda ee ay golaha deegaanka waxa weeye ay ku dhiiradeen. waxa weeye waxqabadadu way badnaayeen laakiinse kani waxa weeye aad baa loogu baahnaa. waqti goor muhiim ah ku soo beegmay. aad baan ugu ammaanaynaa waxay ahayd maamulka golaha deegaanka ugu horeeyo duqa maxay ahayd maayarka ku-xigeenka iyo xogayaa iyo dhammaan xildhibaanada kale ee golaha deegaanka. runtii waxa weeye farxad bay maanta noo tahay inaanu wadadan laamiga ayaan aragnay 3 kiiloomitir inay dhagax dhigaan. waxa weeye waxaan leenahay halkaa ka sii wada dadaalka. laakiin sida gobolada kale qashinka ururintiisa annagu sheegimayno. waa sax waxa muhiim ah in la sheego waxqabadada waaweyn. waxaanu rajaynaynaa in bilaha soo socdana inay qaban doonaan waxyaabo kale oo kuwan ka muhiimsan. annaguna diyaar baan inaan wax badan la qabanno. bulshada kelmad baan leeyahay. waxaan leeyahay iskaa wax u qabso waa lafta barta bulshada. haddaan loo midoobin danta bulshada waxba meel la gaari maayo. bulshada
waddadan waxaanu ku haynay gacanta 3 kilomitir 3 kilomitir gabagabay ku dhow yihiin waxaanu ballan qaadnay inay dhammaanayaan December waxaa noo harsan 500 mitir 2 kilomitir iyo badh waan ka farxalanay waxa farxad noo ah maanta ballantii inaanu ka soo baxnay intaa ka harsan Decemberna inaanu 500 mitir aanu ku dhamaystiri doono haddii la yiraahdo waxa kale noo harsan waxa weeye koowaad inaanu ribraabkeedii iyo daraanajkeedii waxa gallo dowladweynaha waxaan leenahay daawanayo wadalkaagii oo dowladu aan heshay kilomitirka aynu taagannahay waa kii 22aad waan rajaynayno inuu ku dhammaado December 22 kilomitir 1 kilomitir ayaa GBLG kaga abtirsada 22na degmada ayaa samaysay waa noo guul iyo farxad dadka reer Cergaabona waa khayr u soo hoyday